عبد الرزاق محمود الشيخ عبد الرحمن أووغ الشيخ عبد الرحمن يا أخي قحي ودنك هرقيسو كو أسيه الله نحرس محمود الشيخ عبدي اسنو كو أسيه نيروبي قحي بكوتشري أنا هرقيسا كلش وقحي كلك كو أنا لينا مالك لهم بكلش وهذا هذا رجع تلتي وبقول قال بالذي هنا واسقمت قال يجريكو جري صباح يجيل واسقمت وقصر محل لها قال بالذي بقول وها هي محل هذا شيء قرأ عبد السمد قال هذا كعي ورسول وقصر أبو معنا قالوا صدوق فريستها خلاص waxaan ku leeyahay soo fariistaa mooj soo ay ilmaadeen wala khayr dhalay buu way sheegtay bari geel bay cuntay bari geela soo kuris baa la siiyay taa way wadanka timi war wax bari geel ma jiraan ku leeyahay iyadii baan ku leeyahay bari geel xagad ka keentay khalaas ay tiri waan la siiyay waan cunay hadduu bari lahayn soo fariistaa balbalayada waxa keenay wax qax waad wada soogi lahaydeen قحة كان أرنتا حدي وشيله محل هذا إيش ورصدت كود الدجران له ورصدها سومال لا إيو بطلان إيو قوليها كلا كونفورت إيو هيستا حريته حتى إنه هالله كل يوم نسوي برا الله سنة قول بيدينا والله بريق جيل تمام الله ما مغلق لكن ما لا يبادن بينه نبى مدة الله nin isaga waxa ku dhacay baa leeyahay oo Tanzania jooga daacun baa ku dhacay nin lacag haystana waa ila deerkii ka qayli jiray yaa u yimid wariya bal war abaha wasbu maaliyo xaal ku fadhiya arki jirtay bal war waa maxay ana xaal la fadhiya arki jirtay aqal xumadiisu la yaab anigu horta warraba idin maayo sidii awooy ka qaxay ugu weey horta meeshu waxa weeyaan nabi aadan uu garan lahaa hadduu soo baxo wuxuu garan lahaa meelaha la jira biyo ma haysataan maxaa ilaadaa ii sheeg caafimaad ma haysataan maxaa ilaadaa ii sheeg noloshii kale iska bada hadalkeeda waxay ahayd geela in loo dhisa meel lagu mudo markuu xanuunsado ilaa xooladeenu nahay oo ariga meel markuu xanuunsado lagu mudo oo kiniinkiisa lagu siiyo oo dadka lagu siiyo ilaa dhakhtar xoolaha baa jiray dad iyo duunyaba in horta la waraabiya ah oo iyaga la tixgeliyo caanaheena oo inuu iibino warshad caanaha meesha laga furo oo caanaha intaad geysato laga iibsado iyagoo moorgaraysan haddana dib loo iibiyo wixii maba haynaba wixii ma hayno taa waxaa ka daran marka wuxuu yidhi nin baa gebiyeyoo habartii docdeedii dagalkay ku noolay daruuruhu ku horeen dadka wada helmoodiyo daad warrac bay tiri waase dumara yeelkeed ninka halkaa isa soo taagaya dadkana la dhashay waxaan la arkaa isagu hadduu biyo haysto oo subaxdii uu gumaysanayo waxaan u malaynayaa wuxuu isleeyahay uun shan way haystaan biyo baraaguhu meeshaasay ku yaallaan buu isleeyahay idinkaa ii soo hadhay marka shalay baan ka sheekeynayay nin reer burca oo wato gaari iska roga ah yaa habar jiiray kirishbaygii baa arkaa markaasuu ku yiri waryaa qari ha sheegin dee kirishbaygaa baad ku bilaabay ii dhibday waxa ku qayilo ilaa habartii buu og yahay warood gaariga taayirka ka bedel ma jirto ii dhib maalinkii dambe tag aabbaha iyo adigaba la gubi shaqadiina waa kaa eriyey yaa buu habartiina annaga jiidhib xasan war maxay ahayd baa habartu habar baan wadada waa ku jirnayoo magteedi baa ninkan aqaba bu anoo iska bixiyaa la qaadan lahaa 500 baa la baray dadka marka dan laga leeyahay waa in yaroo iska saasuunaho ma garanaysaa ishay
فوت سيئة هدات هذا شنطة بقول على أشياء قاطي حمرتنا الناس إنه فوت كوديني أوه نفضورنا معاك ويلي وحبا وجيسمينه إلا صومالي waxay tiraahdaa aadan xuseen xayla ay baray maahmaahda ilaahay ha u naxariisto aadan xuseen xayla yaa maahmaahda ay baray wuxuu yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa dundumo in la dareensado iyo in la dugsado la isku waa run war waxaynu aragnaa dareen baa ina galay haddana waan dugsanaynaa xagee doqon ka nahay waxa weeyaan sanadkan oo LLF waad garanaysaan ina duurkaa ku jirto oo laydiin dili jiray oo laydin cadaadiyo baqda laydinka geliyey maxay faa'iidi jirtaa malan walaal nin la dilayo oo la erinayo waxun buu arkayey wuxuu arkayey wuxuu ahaa war Itoobiya haddaan wada joogaynaa aynu u wada joogno maxaa idhahdaa ii sheeg inta ay cunto in laga cuno haddaanaan wada joogaynin soo maa aan kala baxno maxaa isugu keeni jira maahmaahdaa jirta aad u taqaanaan idinku anigu waa dab jacsaday laba ninoo wax isugu jiraan yaa shantiisii halaad dhashay kolkaasuu yidhi warkaale hebelow inay kala baxaan buu rabaa geedkani ma qurac baa mise waa qasax kolkaasuu dambe waa qurac inaad aragto horta maalin walba maxaynu u muranaabi maamageelena kala maalno wixii ay ku murmi lahaayeen yuu abuurayaa ilaa shantiisii halaad baa dhashay innaga shanteenna halaad baa irmaan jeexdin baa irmaan meel walba irmaan soo garan maysid ta Itoobiya meel raaro maxaa idhaha ma qurax baa mise waa qasax intaa miyaa garan wey iyadaa waxay dhihi doontaa marka dambe war waaba iska qasax hadduu doone aniga waxaga sii waxa soo ma garanaysid nin baa wasiir u shaxaad tegi wuxuu dhihi shaxaadii dib war shaxaadii dib maaha waxayga waxaga sii inaad tiraa qaatay waxayga waxaga sii wuu garan markaa kolkaasna waxayga waxaga sii nin baa waxaa leeyahay waa riwaayad baan dhigayaa buuri kolkaasuu yidhi waa keligii riwaayadna ma hayo wuuse soo taagay way kan buuri dharkiibu soo bedeshay haddana way kan haddana dharkiibu soo bedeshay haddana waa isla anigii haddana way kan riwaayaddii way dhammaatay buuri lacagteena dadkii ka qaaday war riwaayaddu mayna hees lahaynoo gabay lahaynoo murtina way kan bay ku dhammaatay iska teg nimankan maxaa dhaha wasiirada iyo madaxdeenna waa EPRDF wuu la soo shaqeeyey mingistuu la soo shaqeeyey miliq buu la soo shaqeeyey ka soo gaabi maanta way kan waa BB magaciyaa la soo bedeshay waa suurki haddana way kan odhan mayna in hebel baa tahay haddana way kan dambe yeeli mayno soodigiisaa la shaqeynayay maaha aniga waxaa ila quman weligeen baan tashan jiray geed kale lagu hoos tashan jiray rag waa joogaa waxa laynoo qayqaybinaya waa qabyaaladina waxma tarto waxaa la yidhi laba qabiil oo dagaalamaysa xamar yaa laba ninoo askara oo socotaa ku soo war waayo waa reebel iyo reebel mid baa dee inagu kala dar mid baa dhanu dhaqaaqay inagu kala dar buur war kaalay booliis baa ahayd maxaa ku waalay laba dhan bay ka soo kala jeesteen waa qabyaalad qolo dhulbahanta ahoo iyo mid majeerteena murmay waa la murmay mid dhagdheer annaga ahayd buuri oo gabadh shaac siyaada ahayd mayna ahayn cumar maxamuud bay ahayd buuri haa intuu saa waagay hadda waxaad ugu haysataa ma dad qalataa ilaa wasiir maaha wuxuu wasiir maaha oo prime minister maaha oo madaxweyne maaha ma dad qalataa ii dayn leedahay buuri ma dadkaasaa laleeyahay waa wada dhasheen haddayna dhex mara maxaad marayn lahayd buuri hadda wasiirnimo soo ismaynaa dileen dad qalantaad ii dayn leedahay soo ma garanaysid war ilaahay baan idinku dhaarshay qabyaalad yaan la idinku qaybin isku mid baynu nahay